goor dambe oo shalay ahayd ayaa xeerbeegti dhagaysanaysay dacwado ka dhana maxamed nuur oo Soomaali Maraykan ah horena uga tirsanaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis waxay go'aamiyeen inuu galay 2 faldambiyeed oo ka mid ahaa 3 faldambiyeed oo ay ku soo eedeeyeen xeer ilayaasha degmada Hannibin ee gobolka Minnesota. maxamed nuur ayaa ku eedeysnaa inuu si ula kaca u dilay Justina Rusjek oo u dhalatay waddanka Australia xilli uu wacatay ciidanka booliiska Minneapolis si ay u diiwaan geliso faldambiyeed ay mooday markaa inuu ka dhacayay bannaanka dambe ee gurigeeda. xeerbeegtida go'aanka gaartay oo tiradoodu ahayd 12 qof ayaa lixina waxay ahaayeen caddaan halka 6 kale ay ahaayeen dadka laga tirada badan yahay ee ku dhaqan waddankan Maraykanka. waxayna isku raaceen in maxamed nuur uu geystay dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka saddexaad oo loola jeedo inuu sababay qof aan kala jeclayn nolosha qofka uu dilay iyo dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka labaad kaasi oo laga baaqsan karay. waxaana lagu waayay maxamed nuur dambiga dil ula kaca oo darajada heerka labaad. dambiyada lagu helay maxamed nuur ayaa ciqaabta ugu dheer ee uu ku mutaysan karo waxa ay tahay 25 sano oo xarig ah. garsooraha maxkamadda Hannibin ee gacanta ku haysay kiiskan ayaa waxay bisha Juun ee sanadkan xugmin doontaa ciqaabta xarigga ee uu mudan doono maxamed nuur. maxamed nuur ayaa habeenkii xalay ahaa isagoo jeebaysan waxaa loo dhaadhiciyay xabsiga degmada Hannibin waxaana qareenadiisa laga diiday in damiin lagu sii daayo inta laga xukumayo. gobolka Minnesota oo la aasaasay sanadkii 1858 waa markii ugu horeysay inta la og yahay askari ka tirsan ciidanka booliiska lagu helo dambi dila uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira. jaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota oo si dhow ula socday eedaha ka dhanka maxamed nuur iyo maxkamadeyntiisaba waxay rajo weyn ka qabeen in maxamed nuur aan lagu heli doonin dambiyada lagu soo ogay sidii aan horeba dambiye loogu helin askartii isaga hortiis dilalka geystay iyagoo shaqadooda ku jira. qaar ka mid ah jaliyada Soomaaliyeed oo goobjoog u ahaa go'aanka xeerbeegtiga ayaa dareenkooda iiga waramay waxaana hadalka ku hormaraya Khalid Maxamed oo ka tirsan hogaamiyaasha dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. wallahi dareenka horta waxa waaye waa dareen isku jir ah. horta marka hore qof inuu cadaalad helo aad baan u taageersanahay laakiin tan labaad oo aniga aad ka dhibisa waxa waaye maadaama qofku askariga uu madow yahay inta badan qofka cadaanka cadaalad buu helaa laakiin markuu askarigu cadaan yahay qofka madowga ee dhibanaha ay cadaalad ma helo. taas ayaa dad badan dhibaysa oo anigu ka mid ahay oo mataqaana aad maanta noo yaabisay maadaama oo mataqaana wiilal badan oo madow ahaa iyo gabdho badan madow ahaa state-kan niman cadaan ay ku laayeen ay maanta mataqaana banaanka wareegayaan. sidaad u aragtaa go'aanka maxkamaddu ay gaartay adigu? wallahi anigu waxaan isleeyahay maxkamaddu fair trial may bixin degdeg baa meesha iiga muuqda. degdegaas oo ah maxkamadii hore aan u naqaanay inta badan waxay socon jireen 6 bilood tan waxa uu ekeed kees socday go'aanka lagu gaaray wax ka yar bil ay socotay bil wax leeg. marka taas waxaan u maleynayaa inay maxkamaddu degdegtay oo wiilkan aan la siin trial oo fair ah. tuunka maxaa ku gelinaya maxaad u tuuntaa arintaas? tuunka waxa ay gelinaya waxyaabaha soo banaanka yaa leecad waxa waaye muddo hadda maxkamadii hore u naqaanay waxay socon jireen 6 bilood waxay socon jireen muddo aad u dheer evidence-ka banaanka la keenin jiray ma taqaana waqti baa la gelin jiray laakiin waxay tuunka waxa ay geliyay maxkamadii oo degdeg ahayd. good maxamuud cali marka waxaan arkaa kiiska fair ma helno markii ugu horeysay state Minnesota qof dambi lagu xukumo askari ah oo ugu horeysay marka tusaale uga dhigay adiga camal hadduu qof ninkan cadaan ahaan lahaa marka juurigan iyo waxaanba lamaba keeni lahayn marka hore. magacayga waa cabdi xasan waaye waa u mahadcelinayaa VOA adigana ascad oo ku salaamaya dareenkayga hadda muujiyo aad iyo aad baan uga niyad jabay wixii maanta aan soo arkay waxay markii koowaad aan meel saan oo kala tago waxa ay keenayna waxa Soomaalinimo iyo inaan marxaati ka noqdo waxa dhacaya aad baan uga niyad jabay waan ka xumahay ma u malaynayo inuu fardhigtiganaga u dhacday si cadaalad ah. sanadkii 2016 ayaa gobolka Minnesota waxa askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada St. Paul uu dhararca toogtay Philando Castilla oo ka soo jeeda dadka madow ee Maraykanka iyadoo waliba haweenay la socotay Castilla ay si toos ah barta Facebook uga tabinaysay dhacdada. askarigii dilka geystay Geronimo Yanes oo la maxkamadeeyayna waa lagu waayay dhammaanba eedihii lagu soo ogay. maalintii shalay la xukumay maxamed nuur ayaa dhinaca kale waxaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ku soo biiray Ibrahim Maxamed Jidaal oo ka tirsan Soomaalida gobolka Minnesota xilli jaliyada Soomaalida ee gobolku ay shaki badan gelinayaan faa'iidada ku jirta ka mid noqoshada ciidanka booliiska oo dadka qaar ay ku doodayaan inay ka mid yihiin hay'adaha dalka Maraykanka ee weli cunsuriyadu ay saameynta ku leedahay. Maxamuud Mascadi VOA Minnesota.